halkan aad arkaysaan waa xuduud waana buuraley waxaana lagu baabi'iyey ciidamada aad ka tirsantahay ee sida khaaska u tababaran ciidankaas markii la baabi'inayay iska caabin fara badan ayay sameeyeen mudane xoogaa wax macnaysaana qado maqaayad ma halkan hoorse uga furanta intaa haysatid niyo cun intaan heystaa cunaa halkan waa buuraley iska jirya ha ka dhicin u kaadiye waxbaan dareemay kullay waxbaa qaldan هي ما حد أخبارها سنة طلي وانت دالية وانكبحنا ميسن دمنا نيا كسارية هذيك وستجيه إذا جيس تلاب أنا كخبو درني أنا هايو من أبود نحرقني ننسي السنو أنا تبرتوا أنا قد ماتي ما حسمينا مركب ماشان خبوها كجرو تلاب waxaa ii ballan qaadaa dib wax i gaaro wiilkayga noloshiisa inaad ka fikirayso wuxuu u baahdana aad siinayso waa ballan anigaa garabkiisa taagan taliya maxaa kugu dhacay amarkayga ma qaadateen haa taliya amarkaa waan qaadanay waan igu faanaa maya taliya maxaad samaynaysaa noloshaadaa ku qamaarin taliya waa ku barya waan badbaadayna wax yar baa noo hara taliya maya taliya sidaas xasamayn waa ku baryaa taliya maya taliya noloshaadaa ku qamaarin taliya maya taliya maxaad samaysa taliya ballanku wuxuu yahay saaxiibka ayaa ballanka qaaday ballankiisana waa inuu oofiyaa saaxiibtinimadana aan adkeeyaa aabbaha ayaan saaxiibhayn waana wada shaqayn jirnay balse maalin maalmaha ka mid ah shil ayaan qabsadanay aabbahan noloshiisa wuxuu ku waayay aniga dartay ma aqaan falkaas aabbaha wax u sameey laakiin runtaa waxay tahay xaaladda markaas waa adkayd waxaan ahayn dadkiisi yaala waqti walba nolosheenna waxaan ku horumari jirnay nolosha dadweynaha mana baqi jirin go'aankeenana mid ayuu ahaa
kulankaaga aadaan ugu faraxsanahay doctor saad hawsha haddii dirtana si wanaagsan aan u soo qabtay anigaba sidoo kale ayaan ugu faraxsanahay la kulankaaga doctor waxaan rabaa seen arrimihiisa inaan kaa waraysto in waxaad ka waddaa Soomaaliya Jarsaan qofkaas adiga aad ka hadlayso aniga walaashii ayaa dhashay adiga midaas inaad ogaatid ayay ahayd qaasihii isaga ayaa saaxiibo ahayn anigana waxaan rabaa arrimahooda inaan kaa waraysto qaasii miyaad tidhaahday runtii ninkaas wuxuu ahaa nin aad iyo aad u karti badan howl walba loo dirayna waxay ahayd mid uu aqoonteeda leeyahay isaga sidaas darteed ayaa gruubkooda loogu xeshay in ay hawshaasi soo qabtaan balse markaas kadib iyaga dhibaato kale ayaa qabsatay oo meesha aysan ka filayn si markii lagu fiiriyo qof aad u wanaagsan ayaa tahay waa runtaada haddii aan aniga qof wanaagsan ahaan lahayn Bakistaan kama aan shaqayn lahayn adiga mashruuca qaasi maxaad qabiyo uga tagtay aniga mashruucaas waxaan qabiyo uga tagay waxa ila noqotay saaxiibkay isaga in aan khiyaanayo haddii aan mashruucaas sii wadi lahaa ma xumo laakiin haddeertaan qorshaha uusan wada maxaad ka leedahay wuxuu arkay qaasi projectigan in uu wax muhiim ah leeyahay markii aan arkay qaabkii isaga u waday wax natiijo aniga iga muuqday ma aysan jirin waqtigaas balse waxyaabaha dhacaya ayaa waxay noqon doonaan waxyaabo lala yaabay dadka aan qancin waad saxan tahay anigii aamin saaraa ikhtiyaar wax walboo dhacana aniga waxaan ku qasbanahay Zayd noloshiisa inaan ilaaliyo aniga fikirkayga sidii uu doono ha noqdo doctor Zayd laakiin shaqadeeda haddii ay noqoto waan ilaashanaya hal midna waan aaminsanahay taasoo dadka hawshaan hore u wadi jiray in ay ahayn dad aad u wanaagsan waajibaadkoodana gudanaya maadaama hadalkaas afkaaga aan ka maqlay waan ku faraxsanaa soo gaaraya waxay sheegayaan dabaq aad u muhiim ah inoo qabsadeen ciidamada Muslim Afraad iyagoona isla markaas halkaas ku sugan Muslim Afraad dabaq uu qabsaday runaan dad badan ayaa ku jiray dadkaasna asaga ayay u afduuban yihiin isla waqti xaadirkan
bilaawa shacabkana laga ilaaliyo uma baahni inay shacabku wax gaaraan lama baahna meesha taaganta inaad taagnaatid dabaq labaad u gudub sidaad ula socotaan dabaqii dheeraa ee magaalada ku yaalay oo ay burcadda qabsadeen tiim SS ayaa ka soo badbaadiyey dhammaantood sidaa u jeedaanna waxa ay wada xirteen maaskaro si aan wejigooda loo arkin shacabkana waa laga soo badbaadiyey halkaas mejalsen waxaa dhalay temerson kabtankii hore ay dhimanayay markuu dhintay kadib aabiisna wuxuu la noolaa victor zad cunugaas markuu aabiis dhimanayay wuxuu jiray 10 sano aabiisa iyo victor zadna hal kuleej ayay wax ku soo barteen sen markuu u jiray 10 sano hooyadiisa shil gaar ayay ku dhimatay sidaas ayuuna hooyadiisa ku waayay cunugaas yarkaa hooyadiisa aabiis intaysan dhimanin kahor daryeelku uu ka heli jiray markay dhinteen victor zad marnaba kama heli jirin asagana sida aabiis oo kale hawshan khibrad uma laha haye askari دكتور سياد دكتور زين miyaad tidhahdayna looma baahna adiga inaad magacaas igu wacdo adiga ilaa iyo yaraantaada waxaad leedahay دكتور زيد balse looma baahna inaad sidaas dhahdo waxaa loo baahnaa inaad tidhaahdo abti iyo erayo kale ee darajo mudan ma fahanto warkayga اقرا النقابتي وان عاديستي سيدان hambalya ayaan ku leeyahay aniga hawsha adiga aad qabatay waxaan maqlay inaad ku soo guulaysatay نصيب حمى وهوش أن خبطي ديب وما حسوس تانيغا مرول وان اسكي لابا midaas waxaa keenta maskax yarida mid aan ku xasuusiya zeen adiga dad badan oo la afduubtay ayaad soo badbaadisay weliba burcad fara badan ayaad meesha ku layseen waxyaabahaas oo dhan oo adiga aad samaynaysay ma xasuusatid miya إلا هدكم ما فاهمين laakiin sidee ku dhacday midaas dadkii faraha badnaa meesha adiga aad ka soo badbaadisay oo aadan xasuusan sidaas darteed ayayba ila tahay in meeshaan lagugu waxin adiga lagula kulmo guul wacan og salaamta leh waan kaa qaaday sidee tahay mohan waa fiicanahay sidaad og tahay bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa dhacay weeraradaasna waxaa loo adeegsaday gaaska diyaaradaha maalmihii ugu dambeeyna weeraradaas way soo lalaabanayeen
waxaan rabaa in aan ogaado dadka waday weerarkaas. master sein gruubka aad rabta inaad ogaato mid ka mid ah ayaa waday ninkaasna wuxuu adeegsadaa tiknoolajiyadda casriga xilligan waxaan rabaa in aad ii sheegto hal cadeen qofkaas lagu ogaan karo waxa uu yahay. hal mid ayaa jirto waana magaca magaceed igala hadlaysaa? katara waa magac wanaagsan. dadkan ma ahan dad la ogaan karo khaasatan ninkan nin la ogaan karo ma aha waa isbishaal maxay tahay qaaska aad ka hadlaysid? ninkan maskaxda dadka wuu xakamayn karaa tiisna waa xakamayn karaa haddii uu u baahdo maxaa u dheer intaas? ninkaas maskaxdiisa wuxuu xakamayn karaa 17 saacadood wax walbana ninkaas way u dhammaystiran yihiin run ahaantii anagana ilama ahan ninkaas inaan ka hortagi karno halkan maxaad igu yeertay aniga waa ku sugaya inaan kulanno macnaha macnaheega waxaan ka wadaa sanadooyin kadib aan adi meeshaan ku wada kulunni sawshala ma kulmin ani adiga haa waa kulunni laakiin ma igu filna aniga maxaad doonaysaa marka ha degdegan danahaada ka hadal wax inaan ku tusaan rabaa tartiib isdeji degdega kugu jira muxuu yahay wax degdeg ma igu jira aniga kumaa tahay isku kaale inta imaw gacantaada iyo dhiibkaal igarkee iisoo dhawo sabab kaale Professore! Professore! waan ogaa inaad halkan ka dheerayn codkayga ma ku soo gaaraa inaad i cadawaysato qalad bay kugu tahay ogow professor kalkan muxuu igu wacay waa hubaal wuxuu doonaya inuu wax ii sheego balse uma suurtagelin
soo dhowow run ahaantii adiga weli ma aadan isbeddelin oo waxaad tahay geesigii halyeyga ahaa ee hor u socodka lahaa adiguba yaa ku gaara baaritaanka ma lagugu gaara kulankaaga aad baan ugu faraxsanaa sidoo kale anigana weli jeesjeeska ma aadan dhaafin yaa ka gaarana jeesjees wakhtigiisa mar hore ayay ahayeen waxaas balse haddeer jeesjees wax la yidhaahda ma jiraan sayn siduu yahay waa fiican yahay weliba halkan ayuu joogaa wakhti badanna waxaan isiri adiga howlahaaga ku soo lifaaq balse waa uu iga diiday dhowr jeer ayaan isku dayay aniga inaan asiga fahansiiyo balse askarinimada oo keliya uma baahna inaad dalkaaga ku difaacda iyo shacibkaaga balse wuu iga diiday aniga midaas sida aabiis ayuuna u madax adag yahay dad waxaa jira shiishkooda uu saaran yahay aqoon-yahanada sidiinoo kale ah waana dadkii ka dambeeyey weerarkii khaza naftada halis ayay ku jirtaa ugu qof ayaan ugu dhex jira oo arrimaheennu idil og aniga nafsad ahaantiida waxyaabahaasoo kale maba daneeyaba haddaba naftaadaa ku maqani ogow soo dhowo mudane seen fariiso aniga qof haweena ma filinaynin laakiin way dhacday waxay ahaataba shaqadeenna haddeertaan waa inaan yaa tahay adiga magacayga waa saaraa waxaanay saynisyahana dadka baarta saaraa hawsheena waa inaan bilownaa aniga muddo 6 saacadood ayaan halkan kugu sugayay saaka waxaa la ii sheegay waqti hore in su'aalaha la weydiin doono laakiin sababta intaan oo dhan aad u soo daadli iima sheegin kolay waxaa tahay gabar aad iyo aad u qurux badan laakiin waxay ahayd markii lagu soo tababarayay dhaqankana in wax lagaa fahansiiyo maxay tahay sababta aan meeshaan u imaanay micnahaas ifahansiiye waxaan rabaa inaan ku baaro maxaad iga baaraysaa adiga aadaad u wanaagsan tahay waad mahadsan tahay laakiin ammaanka ma wadinyaa arrinkan dartiisa ayaan u imaanay adiga sababta gacantaad ugu dagaalanta maxay tahay hub ayaad haysata hubka maxaad u isticmaali weyso aad isaga daysay dooqiga koowaad ayaa ahaa inaan gacanta ku dagaalamo marka maxay tahay qaladka aan galay sanooyin fara badan ka hor mashruucan oo kale waxaa loo diyaariyey qaasiye ayagana way ku guuldarraysteen sidaas darteed mashruucan halkaas ayaaba lagu joojiyey dibna looma furin mashruucaas waxaa ku jireen dadka halkan aad ka aragto su'aalan ku weydiiye adiga aabbaha ma xasuusataa mise ma xasuusatid weli maxaa yeele aabbaha mishinka qaasiye isagaba qayb ayuu ka ahaa keliya anigu waxaan ogaa aabbahay dalkan inuu u dhintay sababtuu u geeriyooday iyo qofka arrintaas ka dambeeyeyba lama soo caddeynin siday aniga ila tahay waxaa ila wanaagsan aabbaha xaqiiqadiisa inaad soo ogaato adiga ayaan kuugu talagalay waa hub casri ah qaabkaad rabtidna waad u isticmaali kartaa haddii aad wax tooganaysana sikin kuguma qaadanayso meel dheer ayaad wax ka tooganaysaa naqshadan dadku dhan ayaa haysta mana doonayo mudani dadkaas anigay kama tirsanaysa maahanna waana la kala gacan fudud yahay sida anigoo kale waa ka helay waa naqshad fiican haddii uu hubka kaa dhammaado xitaa wuxuu ku siinayaa 5 daqiiqo waxaad isku difaacdo awood ayuu waa leeyahay midda loo baahan yahay mahadsanid mudan inaan wax ku weydiiyaan rabaa waad weydiin kartaa barofesoorka arrimo ku saabsan ayaan doonayaa bahalkanaad arkaysa weli lama isticmaalin waxaan rabaa inaad ka shaqaysiiso dadka anagoo kale ah waxaysan jebin karin ma lahan shaqadaadan waan kuu qabanayaa waxbaa ka cabsanin adiga mahadsanid anigu waxaan rabaa arrimaha aabbahay inaan wax ka ogaado oo waxaana ka tixraacayaa sawirradan uu iga tegey
wax walboo la ii sheegay waxaan rabaa ugu yaraan inaan caddeemo ka helo waddo walbaan u maro balse hadda waxaan dareemayaa aabbahe si dhab ah inaan u fahmin waana aqoonsan waaye aniga mudanaseen waxaan ku sameeyay baaritaan qaybta koobaadna wuxuu u egyahay qof shacaba qaybta labaad markii la fiiriyana waa askari baaritaan dheeraada markii aan sii sameynay kadibna waxaan ogaanay mudanaseen waxyaabaan xirfad oo kaliya inaysan ka hen ee isagu uu leeyahay dhaxal in anaga dadka qaaska ah ee horaan baaritaanka ugu soo sameynay xitaa waxaan ku aragnay waxyaabo noocaana marka ay weerarka tagaan tusaalahaan markii loo baahan yahay dadka inay weeraraan isla ayaga ayaaba isku soo jeedsanayeen mudanasayna arrinkaas ayaa maanta haysta arrinkaasna waa arrin annagaan hore uga yaabnay qofka ka dambeeyna ilaa haddeertan wax aqoon uma lihin ما مقشا وير يا نقص فولي وين النلشاط إلى لسا حتى بهرا وحلو يرني كودي وكموسن دلين أوجوون كودي نلشاط حفيت عذو إسكيلالي متكلنا نكون راعي ضدكس توبر كود عادي ما حبنا وايسيدان هكود دقيقين waan isku dayay way ku soo dhow yihiin laakiin waxba ma arko way ku soo noqonayaan waxaan ku soo dirayaa ciidamo ku ilaaliya okay qaybta aad joogta mahana qaybta kale u gudub halkan fiir waxba kama qaado qoriga qaado qabso hortada ayuu yaallaa iska dhici ragga dabaqa ayay nimanka korayaan dhabarka ka tuugo laakiin waa ay badan yihiin kuma filni gudaha u gal
yaa ku soo diray war yaa ku soo diray ii sheeg annaka waxaan ka mid nahay ciidamada bataan mana laga yaabo qof oo wax ka bedelo isaga ayaana nala socdo annaka yuu yahay ninkaas yuu yahay magaciisa ii sheeg warya naas sheeg yuu yahay qofka ku soo diray adiga saaxiibkaaga daktar siyaad muxuu yahay marka waa booska meesha taliye dhakhtar siyaad meesha lagu afduubtay way noo dhowdahay ma aadnaa annaga ciidamadeenna wax walba oo aan u baahannahay waa ay inoo qabteen dhakhtar siyaadna annaga ayaa gacanta ku hayno waxaan rabnana waan ka samaysan karnaa cid wax naga qaadi kartana ma jirto halkanna maxaad u timid maxaa jira kiiskaaga maadaama gacanta aan ku hayo waan ku qasbanahay inaan ku imaado maxaa kaloo haray waxaan kaaga mahad celinayaa maadaama waqtigaaga adii ogolaatay dhabta haddii aan kaala hadlo aniga waxyaabahaasoo idil ma xasuusto intaan adiga imaanno wax walba waan ogaaday tartiiba maskaxda u soo laabanaysaa adiga waxbaan baaraya ayaad leedahay laakiin 6 qofood oo anaga naga tirsan ayaan meeshaas ku weynay arrinta sidaad u malaynaysid way ka adag tahay mudanaseen aniga xitaa waxaan waayay qof aad iigu dhowaa qofkaasna wuxuu ahaa saaxiibkay wuxuu ahaa qof aniga ii qaasa si xad dhaafana wuu ii jeclaa wuxuuna ahaa qofkaas Professor Harry aabihii dhalo waxba ma uusan dhaamin mudanaseen aniga waan la socdaa mashruucan maanta faraha aan kula jirno qasaare mooyaane marnaba inaynan faa'iido ka helin laakiin waxaan rabaa inaan ku madax adeego aan ka salgaaro adigana waxaan kaaga baahanay garab inaad igu siiso diidi laheeda ama dooni laheeda aday ku jirtaa ayagu waxay la socdaan waxyaabo fara badan oo xitaa security-ga aan ogeyn sidaas ayaan u fahmay sidaad wada ogtihiinba dadka ajnabiga ee dalkeenna imaada wax soo saar ayay ka raadiyaan see u aragtaa wax soo saarkaasay ka raadinayaan waddankeena wuxuu sameynayaa horumar ballaaran shacabkeennana waa kuwa aad u horumarsan dadka waddankeena maalgashanaya aad ayay u soo badanayaan bakistaanna tiknolojiyada aad ayay ugu soo dhowaanayaan hal midaan idin weydiinayaa igana jawaaba adigoo raalliya waa kuwaana warqadii warbixin walba ay dirtay warqadan ay ku xisan yihiin waa arrin aan ku farxay laakiin ogow waxaan u malaynayaa waxyaabo kale inoo harsan yihiin waayahay mudane waaya maanta warbixin ayaa bangiga soo gaartay warbixintaasna waxay sheegaysaa dad inay doonayaan dalkeena inay maal gashtaan midaasna waa midaan ka soo horjeedo ma dhamaysay may xoogaha igaga dhiman halkaas fadhiiso maxaad baaraysaa dhiigga qaybihiisaan baaraya wax meeshay u garaan adiga maskaxdaada way wanaagsan tahay weliba 100% marmarka qaarkood waxyaabo qaara waxay la noqdaan inaan ku riyoonayo kale marmar xitaa waxaan arkaa wax cajiiba maxaad aragtaa aragti oo kaliya maahan xitaa waan dareemaa waxay la mid tahay inaan goobta ku sugan oo kale
waxaan arkaa ammaan dareemaa waddankoo idil inuu gubanayo dad fara badanna ay dhinacyaga yaalaan weliba ayagoo meed ah laakiin waxyaabahaasoo dhan ma dhici karaan waxyaabaad hore u aragtaa sababayo sidee ahayd hooyada xaaladeedana iga horan waxay ahayd qof aad iyo aad wanaagsan weliba geesiyada wax walbana u barirta hooyaday wax walba ayay ii samaysay way daryeeli jirtay waxbarashada xitaa way igu kontarooli jirtay aabbahayna sidoo kale aad ayaan isugu faraxsanin aabbahay askari ayuu ahaa weliba askari waddankiisa daacad waa seen waxyaabay hore u dhaca adiga wax qaladood ku leedaha ma lahan waan ogahay haddeer waxaa la gaaray wakhtigii annaga wax walba oo aan u baahannahay aan qabsan lahayn adiga xitaa haddii aad sidheyga ka fiiriso oo aad ka dhex arkaysaa qof mishiin adeegsanaya magaaladana wax walba uu isaga u baahan yahay ka samaysanayo waxaan u baahanahay xanaaqaaga inta hadda uu yahay in ka badan in aad ka dhigto waana ogahay in aad aniga i taageersan tahay balse aniga waxaan u baahanahay in aad ii taageerto sida ay dadka ii taageersan yihiin ma ogtaa waryaa halkan waxaanu nimid ma oga asagaanu malaynaa sida eeyahoo kalena waa u qaylishaa dadkana waa goostaa balaha ku dhacday kan waa aqaanaa xayawaankan midaan ku dhigi doono weligiisoo ka sheekayn doonaa aye duqa wejigaada ayaan xiise u qabaa maaska marka hore sii balaayaanay iyaga dhaqso waryaa hadalka maqal oo haddeer ma waxaad xiisaynaysaa aniga inaad wejigayga aragto adiga maxaa dhacay haddii aad kaamirada damiso qolkaana aad iskaga baxdo waxaan kuu sheegaya adiga ciqaab xun oo aadan weligaa iloobayn in aan aniga adiga kugu dhigi doono arbeen badanaa iska wada duubistaada wado balse aniga waxaan u baahanahay waqti xaadirkan adiga in aad bistooladaada la soo baxdo weliba aad gacanta iskaga dhufto ma samay karo xanuun aniga ima qancin midaas haddeer hal far oo keliya ayaa maqan waxaan rabaa mar labaad inaad ku dhufato mar kalaa si ay gacantoo dhan ay u wada go'do ku dhufo markaa ha ku celin waa ku tuuga waad fiicantahay waad fiicantahay wariya adiga kaalay marka kaalay adiga waxaan u baahanahay wejigaaga inaad adiga xabad aad ku dhufato weliba haddeertaan ayaad adiga istooganaysaa inaad noolaatana waa loo baahan yahay samay marka isku dhufa xabadda sanka weliba masakii dheeraa ahaa isaga dhufa sanka sibalada baashaan qulucinhayaa wat maxaan wadahayaa samey waxaan kuu diray maxaan samaynahayaa okaada hadda waa ka cabsanahayaa baashu aniga wax walba ayaan samayn karaa
waxyaabahan haddeer idinka aad arkaysaan ee weliba idin muuqdana ma ahan waxaan haddeer bilaabayo weligay ayaan samayn jiray haddana waan samaynayaa siduu dhaktar siyaad u afduubtay oo kale ayuu rabaa dadka inuu afduubto ninkaas magaciisan aad buu iiga batay magac dhammaystiran ninkaas ma laha magaciisa guunida ah waa kataan midda kale waxaan sameeyey gruub arrimahan ku shaqale si ay u soo ogaadaan darteed waana ku dadaalay waxaan la kulmay dhakhtarad doonaysa maskax wax koontarooleysa inay samayso waana waraystay laakiin ninkaas mashiinno u gaar ayuu samaystay wuuna ku shaqaystaa runtii mashiinkan waxaa samaystay kataan teeda kale ninka maaska dhexdeen anaga waxaan ugu shakinaynaa kataanka naftirkiis inuu yahay aniga waxaan aaminsanahay kan inuu kataan yahay ninkaas kataan la yidhaah waa la kulma aniga balse waxaan rabaa lambarra inaan idin tuso lambaradaas wuxuu rabaa dadka inuu ku dhibaateeyo ninkaas kataana dadkoo dhanna asaga ayay raacsan yihiin amarkiisay u hoggaansan yihiin wararkay u soo qaadaan hadalkiisana hadal ma soo dul saari karaan tali taliya waxaa la ii sheegay aabbahay inaad saaxiibo aheedeen mishinkii ugu dambeeyna labadiina aad isla wadeen waa runtaa aniga oo sharaftaada ilaalinaya taliya waxaan rabaa inaad ii sheegto aabbahe maxay tahay sababta uu nafsadiisa kugu horay taas ayaan maqlay aniga maxaa idinka dhexeeya xariggaas dadka lagu badbaadinayay aniga gacanta ku hay aabbaha noloshiisa wuxuu ku waayay anaga darteen dadkoo idil maxaad ka waddaa wuxuu ahaa dadka gaasi loo xil saaray borjektarka kaazi wuxuuna ahaa taliyaheenna ma taqaana howlgalkan gaaziye waxaan arkay ciidan fara badan oo horteyda ku nafbaxaya runtaa waxay tahay weerar walba oo la qaada waan badbaadaa ciidanka kalese way dhintaan laakiin taliya sabab maxay tahay ujeeddada ka dambaysa mar walba inaad adiga badbaadin ma aqaan qorshahan waxaa laga damacsanaa laakiin runtaa waxay tahay aabbaha waxaa qof wanaagsan ciidanka dhanna asaga ugu wanaagsanaa waana ku kalsoonayn balse markuu geeriyooday howlgalkan mas-uuliyad annagana laga saaray waxaana loo baahan yahay inaan dhammaystirno howlgalkan asaga mishin oo keliya miyuu ka fikiraayay hal mar xitaa ma ku weydiiyo wiilkiisa iyo xaaskiisa nolosha ay ku sugan yihiin waxaa ku soo koriyey doctor saaki wuxuuna saynisyahan caan ah haddana deggan sooma saxni waad saxan tahay balse waxaa dhaba booska aabbaha cidina inaysan marnaba kuu buuxin karin waad saxan tahay laakiin waxyaaba dheeri aabbahay iiga sheeg xarigga markaan ku dhegganaa runtii aad baan u cabsaday geeridana horteyda ayaa la keenay balse aabbaha ma ahayn shakhsi geerida ka cabsada waa ninka keliya cabsideeda ku beddelay dhoolla caddayn ilinna indhahayga uu diiday noloshiisana uu ku waayay ugu dambayn aabbaha qorshihiisa waa u guulaystay ninka askarigaana waxaa loo baahan yahay waajibaadkiisa ciidannimo inuu si wanaagsan u guto aabbahana sidaasuu ahaa guushiina way soo raacday baaritaan dheeraad markii aan sameeyey kadib waxaan soo ogaaday arrimahan in ay yihiin arrimihii doctor siyaad uu waday laakiin waxaa jiraan dad barofeshinaala oo arrimahan annagoo ilaalinayna sharciga hawshan waa inaan raadsanaa marka ugu horraysa meel aan howlgalkeenna ka bilaawno waa muhiim
ilaa iyo hadda waqtigii la qabtay iyo meesha loo qabtay anaga ma naqaano sideen ku ogaanaa marka wax walba in qalabkan ayaa noo fududaynaya sistamyada lagu jebiyaa haa waa saxan tahay qalabkan ilaa iyo hadda suuqa madow muusan imaanin mishinkeena qof ogaanaya haba yaraatee ma jirto qaas ayuu noo ahaanayaa anagoo isticmaalayna mishinkan ayaan waxaan ku soo ogaanaynaa digtoorka ciddii afduubatay iyo meeshuu joogaba taliye aniga ilama wanaagsana mishinkan mudanase in lagu soo daro hadalkaada wuu saxan yahay waana kugu raacay dabcan laakiin ninkaas waa balaayo loo baahan yahay qorshahaanna wuu anfacayaa waad ogaan doontaa ilaa hadda baaritaankiisa ma aanan dhammaystirin zayn qorshaheenna waa ka mid aniga markii horeba waan shaqayn jiray balse wakhtiga ayaa sheegi doona qofka saxan iyo qofka khalad kuley aniga ma aqaana sababta ciqaabtan la ii marsiinaya laakiin waxaan ogaa ciidamadan iyo projectorkanba inaan aad u aqaan aniga wax walba waddankayga inaan u qabto diyaarayaan u ahay kuley diidmadiina lagama yaabo aniga rabitaankayga inay burburiso wax walba oo waddankayga iyo ciidankayga aan ku caawin kara diyaarayaan u ahay hayloobin in laga sarreeyo medelsayn soo dhowow taliye adigoo sidan u yar ayaad wax rabtaa dagaalka inaad qaybisho soomaan haa mudane geedkan mataqaana iyo waxa uu qabanayo waa shookar balamaas waa saxan tahay taliye waxaan kaaga baahanahay 7 wareegoo dhaadheer inaad soo ordo aniga adeerkay wuxuu ka mid ahaa 16 sanjirada meesha ku dhintay wuuna dagaalamayay geesi weynna wuu ahaa anigana geesinimada asigaan ka raaca sidaas awgeed ciidankan ku soo biiray qalabkan aad u jeedidna koronto ayuu ku shaqeeyaa sidiisaba sida jirkaaga oo kalena uu u shaqeynayaa ma waxaad kala jeedaa jaakadaan ayaad xirinaysaa waxaad isku daydaa hal mar hadalkayga inaad maqashid hal mar oo keliya jaakadda xiro hal mar oo keliya aniga wax la yaqaana ma taqaanaa maya laakiin waxaan rajaynaya hadda inaad ii sheegto dadkoo dhan aniga waxay dhahan waxaad tahay qof geesiya hanaga fogaanin wakhti walbana garabkeenna taagnaaw waxaan ahay qof aad iyo aad u caqli badan caqligana waxaa ii dheer muruq fiir bal sidaan u dhisanaya aniga dhan innaba cadimi adigana caqliga waad leedahay laakiin milif ayaad tahay muruqo ebera ka tahay balan aragna wuxuu samayn karaa waxaa loo baahan yahay idinka waqti aysan idinka filaynin inaad weerarka qaadaan Deploying JF Thunders, Mi-35 and Bugatti Beam.
ayaad joogtaan taxadarkiina ha bato weerar badan qaada waxaan isku dayaa inaan ka hortago halka laga maamulayo waa qaybta midig ma aragta adiga dadkan marka hore way ka warhayeen halkan inaan imaanayno qorshahoodana wayba dhammaysteen taas macquul maaha qorsheenniya kala ogaa zayn doctor zayd qalabku isticmaali jiray qoraga ayaan kuga xiray okay waayahay zayn hortaada iska fiiri ma waxaad rabtaa teknolojiyadan oo dhan inaad isticmaasho sida aabbaha uu isticmaali jiray oo kale waad ka shalayn doontaa midaan waad fiicantahay adiga haddii aad mar meeshaan imaaday balse meeshaan waxaad ogaataa in aan geesi loogu talagelin middeeda kale adiga maxaad wax ogaataa adiga ayaaba nafsadaada aadan ogeyn waxyaabaha aad tahay maantana waa maalintii been oo dhan ay dhammaan lahayd runtii ka dambaysana aad ogaan lahayd yaysan kula noqon meeshaan meelaha lagu soo tababarto waqtiyada qofka mishinka loo soo diraay balse adiga hawshan ilama aha mid aad ka baxsan kartid in ay tahay run ahaantii dadka ku soo dira adiga meeshaan waa ay kugu soo qaldeen xornimo miyaad u dagaalamaysaa ma waxay kula tahay inaad xornimo u dagaalamaysid dadkiinan bini'aadanka ah waqti walba waad iscadawaysataan weliba idinkoo jecel qof walba in uu qofka kale nafsadda dhaafiyo balse annaga middaas dhankeena kama jirto waayo meeshan annaga waxaan doonno ayaan ka samaysanaa qofka yimaado idinkoo kalena meeshan ayaan ku dhex dilnaa ma ku fikirtay adiga raaxada iyo nolosha farxadda leh aad ku jirtay markii aad ka soo baxday weliba meeshan aad soo aaday dhibka iyo rafaadka aad la kulmaysid run ahaantii aniga waxay ila tahay qof maskaxdiisa waxyaabaha ay samaynaysa aan kontarooli karin inaad tahay annaga waxaan ku dhaqannaa sharci balse adiga sharcigaas waxaa laga yaabaa in aadan ku dhaqmin ama aadan aqoonin waxyaabaha uu yahay waxuu ku saabsan yahayba adiga hadda looma baahna sharci waxyaabo kale inaad ka fikirto sharcigaad ka hadlaysidna hal mar xitaa adoo ku dhaqmaya kuma arkin waqtigan wixii ka dambeeya adiga ciidankayga ayaad ka mid noqonaysaa دكتور زاد لكن سيده زياد بروجكتيgiisa AK 1789 code name-kiisana waa Qatar wuxuuna leeyahay awooddaas oo aad iyo aad u fara badan weliba ilaa yar waxay gaarsiisantahay dadka maskaxdooda inuu isaga akhriyo weliba uu maamusho wuxuu doonana uu ka samaysto ninkaanaad arkaysaan awooddiisa iyo wax walba uu samaynayo isaga markii laga soo tago qaab maskaxiyan maaha qofkan qof jira ama qof wuxuu doono samaysan karo
ayaga haddeertan waxay isku dayayaan mudane sayn inay dilaan waxaan kaaga baahanahay waqti xadirkan la taagan inaad soo badbaadiso nafsadiisa khatar ayay ku jirtaa دكتور ما في عنتها waan fiicanahay annaga intii ay joogaan dad idinkoo kale ah weliba geesiyaal cid wax naga qaadaysa ma jirto aniga waxaan rabaa inaad adiga wax ii qabato jacaylka qiimaha uu leeyahay in aad ogaato ayaan rabaa hawsha aan kuu diraayana aad adiga si wanaagsan iigu qabato adiga waxaad tahay taliye sidaasna dhahda looma baahna adig doctore hooyadaa markii ay dhimatay aniga waxaa noqday keliya laakiin waxaa hubaal ah adiga in lagu bedelay adiga xitaa qofka aad tahay isma ogid laakiin wax walba waxaa u sabab ah dhiigga adiga xididadaada ku jira adiga ciidan walba oo haddeer shaqaynaya ayaad ka fiican tahay laakiin adiga run ahaantii kuguma mashquulin sababtoo aniga danteyda iyo horumarkayga oo keliya ayaan ku mashquulsanaa looma baahna adiga inaad sidaas samayso زين زين maxaa kugu dhacay زين ila hadal زين war ila hadal زين anaga inaan dhul iska yar u dagaalano wax aan ka helayna ma ii sheegi kartaa adiga qof annaga hadalkaas wax naga dhihi karana waqti xaadirkaas ma aysan jirin dhakhtar naga mid ma ahayn waadna qiyaamtay balse waxaad isaga keen dhigtay kooxda sax aniga idinka maba idinka mid ihi دكتور سيد قعنتا يا لو دغ مدن سين wuxuu dhahay xabsiga yaana la geenin ee hal geeyo waayelada goobta lagu xanaaneeyo intaan anaga xogta ka helayno dadkana darkiisan waxa loogu talagalay howlgalkii qaysi sidaas laajiga dadkan waqti badan waa ay soo jeedi karaan waqti badan waa ay baahnaan karaan balse aniga ilaa iyo hadda waxaan dareemayaa habacsanaan ka jirta anaga dhankeena waxaan rabaa aniga in aan tijaabo ka qaado iyaga tijaabadaas markii ay maraan wax walba waa okay tooganig qofkan wuxuu awood u leeyahay nafsad ahaantiisa waxyaabaha dhacaya in uu ogaado waxyaabahan aan samaynayna ma wax khaldan yahayna barnaamijka qaasi ayaa wuxuu yahay xuduud walba sharcigeeda in la jebiyo annaga haddii aan haysanisyahan wax walba ee ku saabsan waxyaabahani annaga waan qaban karnaa balse dadka qaar ayaa waxay ogeen waxaan waxa ay yihiin annaga waa ognahay waxay yihiin war anaga haddii aan nahay ciidanka dalka waxaan laga rabaa inaan dalka difaacna maahan inaan sidaan waxyaabo nugu raadino waa qalad waxaanan samaynayno adiga haddeer haddii aad dhahdo aniga wax ayaan raadinaya waxaa laga yaabaa 4 qof 5 qof ugu badnaan ilaa iyo 6 qofood in aad raadiso balse borogaraamkan aniga haddeer aan wado wuxuu inoo sahlayaa dad fara badan in aan gacanta ku dhigno bilaa amar ayaad baxday ciidamadeeda ayaad soo kaxaysatay waxaad doontan waad ku amartay hadda maxay tahay amarkaad iiga baahan tahay markii ii sheeg adiga waxaa loo baahnaa aniga horumarkaan haddeer aan sameeyey in aad iigu hambaliyeyso maan hadalladan maalayacnigaad igula hadlaysid inaad igula hadasho maadaama ciidankan anigaan hogaaminayo adiga maanta wixii ka bilowda borjektarkan kansal ayaad ka tahay waan kaa kansalay wax shaqaana kuma lihdid la soco waxaan haddeer adiga aan kuu sheegaya dhammaantood waa waxyaabahan oo dhan waxa ay ku bilowdeen oo sidan maxaad iigu adiga ayaan awood ku siinaya adiga waxaad tahay khayaanoole aniga khayaanoole maahe waxaan oo dhanna waxaa ka dambeeyay adiga familkaaga weliba waxay ahayn dadaalkayga dadkii hal bacaad lagu lista ka dhigay
aniga waxaan kuu rajaynayaa adiga indhahaaga in ay kuu kala furmaan si aad u aragto runta taagan waxa ay tahay runtee ka hadlaysaa runtan haddeer aad u jeeddo wax walbana waxay ku dhacaan daciifnimada annaga nafsadeenna aan ku beerno qofkii isku daya inuu horumarka ka shaqeeyo dadku waxay ka soo qaadayaan in uu yahay qof waalan ay maskaxdiisu fadhin qofka bini'aadanka si walba uu iskugu daya inuu been u sheego runta indhihiisa ayaa laga arkayaa runtee ka hadlaysaa runtan haddeer adiga badtaada ka muuqato runta adiga indhahaaga ka muuqata ayaa waxay tahay in aadan rabin adiga xitaa in aadan i arki karin adiga markii lagu fiiriyey qaabka noloshaada dhiiggayga matid sidaas ay tahayna aniga ayaa adiga ku soo koriyey si fiican ayaan kuu aqaanaa adiga seen adiga waxaa loo baahnaa waqti xaadirkan in aad ka fikirtid talaab balse sidii dooligiiyo kale ayaad maraayaddan dhexdeeda ku dhuumanaysaa middaasi ma wanaagsana bes iga dhamaalaya aniga هاتلي اوكي واي كان اغوست لي جرتيا ilaa iyo haddeer waxaad maqli jirteen ayaa waxay ahaayeen been oo keliya balse aniga haddeer waxaan rabaa runta wax walba ay tahay in aad haddeer aragtaan runta ayaan idin sheegaya aniga magacayga waa kataan waxayna ila tahay la kulankayga in uu xiise badan idinku haayo waana idin sugayaa ii imaada mudane wax kale ma u baahan tahay darbaa xishoonin mudane maxaa u baahan tahay kaalay fadhiiso mudane inaa fadhiista barawo fadhiisa adiga aniga gacabsanina sheeko ma kaaga sheekeeyaa aniga xitaa adigoo kale waddooyinka ayaan ku soo koray aniga waddooyinkaas ayaan ku soo koray intii aan waddooyinkaas ku sugnaa ma qiyaasi kartaa dhibaatada iyo rafaadka ay aniga nolosheeda soo martay iyo inta burcad aan la kulmay waxaan arkay dilaa waxaan arkay dad wax walba dhacayo haddana way kana maalinkaas ayaana ogaadaa aniga dadkaas oo dhan in aanan waxba ka duganayn dadkaas aniga haddeer adiga aan kaaga sheekaynaayo cabsidooda rafaad walbo iyo dhibaato walba ay geysanayaan indhihayga ayaan ku arkayay sidaas ayaana iyagoo kale aniga aan u noqday wax walbana aniga ayay gacantayda ku jiraan hal marka qaad maradaan waa wejigan aniga wejigayga dhabta ah wejigan kale aad igu arkaysid waa kii bini'aadannimada mar hore ayaana iska dhaafay wejigayga xaqiiqadana waa uu baxay adiga yaa tahay aniga iyo qofkaan ahay aniga waxaan ahay qof wakhti walba isaga rabitaankiisa oo keliya ku shaqeeyo haddii aad adiga aniga si fiican ii fiiriso wejigayga ayaad ka arkaysaa adiga indhahaaga ma aragta adiga dadka oo dhan waa ay u wada jeedaan iyagana waa ay arkaan fiiri بداية أدعو تدين معك وأستانه ما نسيسي دو عواكو سمع بيجددو النسيه معاو قليو سعيد خلصه نقدأ
maxaa kugu dhacay sunta magaceeda waxaa la yidhahdaa toxid qofka bini'aadanka jirkiisa waxay ku reebi kartaa saameyn fara badan suntan waxay jirka ku reebi kartaa saameyn fara badan isla markaasina qofka aanan ogeyn wuxuu sameynayo qofka suntan loo adeegsado waxay la noqonaysaa qofka kale inuu la dagaalo asigoon waxba u geysan dadka waxay ku kalifaysaa inay laba isu qabsadaan iyagoo aan waxba ka dhixin taasi waxay dhalinaysaa in dadka si maalaayacni ah isku dagaalaan suntan qofkii loo adeegsadana ma is xakameyn karo mudane anaga waa soo ogaani kartaan meesha uu ku sugan yahay zayn aniga warbixin cusub ayaan helay ciidankana waxay isku dayeen kataan inay ka hortagaan aniga meeshaan kuma xaraysnaan karo ninkaas keligiisna meeshaas kuma sii diin karo seen adiga meelaad aadaysi ma lahan sunta lagugu diro jirkaaga way saaqday xaaladaada ayaaba khatar ku jirto waxaana dhici karta xitaa annagoo dhan nafsadayna khatar inaad gelisid meelaad u dhaqaaqayso ma jirto halkan ayaad joogaysaa oo xaaladdan meed iigu sii deynaysaa marka waan dagaalami karaa zayn sunta lagugu diray jirkaaga idil way saaqday inaad baxdo looma baahna waxaa dhici karta xitaa annaga nafsadayna khatar inaad geliso zayn ha bixin زين ما يمقشها زين
geli dib ha u noqdo waqti xaadirkan dilaabar ayaa kula hadlaya ha cabsanin wax walba ay kontaroolo yihiin haye doqon adiga ma kala saari kartaa wejiga uu leeyahay cadowgaaga iyo midka saaxiibkaaga ma aqoonsan kartaa yah maxaad u aamusan tahay aabahee adiga darta ayuu u dhintay sabab aabbaha aniga dartay uma dhiman ee dalka ayuu u dhintay wuxuuna ahaa askari daacada sidoo kale marnaba muusan hayn aabbaha zayn soo xasuuso ballankaad qaaday aabbaha riyadiisu waxay ahayd dalkaada inaad difaaci doonto balse sidaad u dhaqmayso ma ahayn riyada aabbaha maskaxdaada soo celi zayn waxaad taha dagaalyahaankana ma guul darraysto waa inaad guusha raadisaa taliye iga fogow taliye maxaa ku hadlaysaa halkan isaga tagsiin orod soo kulama hadlayo orod waan imaaday suntan dad fara badan ayay hore u soo saamaysay warbixinteedana haddeertan ayaan gacanta ku dhigay waxaana rabaa inaan xakameeyo waqti xadirkan la taagan yahay waxaan ku siinayaa qalab mashiinka xaggiisa kugu hagaayo wararkan soo gaara ayaa waxay sheegayaan sunta toxi lahaayee dad badan inay saamaysay ilaa haddana waa la leeyahay wax loogu hortago
aniga haddii aan dilkaaga u baahdo adiga mar hore ayaan ku dili kari balse waxaan kugu daayay mataqaanaa aniga waxaad adigu u ekaatay qalbi caruur khalad ayaad ku gashay inaad isii dayso adiga iyo waddankaagaba adiga iyo ciidankaagaba wax aad qaban kartaan haba yaraatee ma jirto hal askari oo geesiya markuu naga dhinto boqolaal kale oo geesiyaala ayaa soo baxayo hal askari haddii uu shahiidana boqolaal kale ayaa ciidamada qoranaysa adigana taas dhabarjab xooggan ayay kugu noqonaysaa wax walbaba inta aysan dhicin ka hor ayaad ogaa kartaa Zayn. maya aniga ma guuldaraysan kari adinkoo dhanna aniga gacanta ayaan idinku dhigayaa waxba ma iga beddelaysaan waan idin baabi'inayaa ये वतन तुम्हारा है तुम हो पास बास के तुम्हारा है नगमा इस ज़मीं की मिट्टी में खून है शहीदों का अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो वक्त के dadkan waa dadkii nafsadooda u horay dalkooda wax walba ayay dalkooda u sameeyeen si wanaagga ay banaanka u soo dhigaan
xumaantanay u baabi'iyaan qof kasta waa uu xun yahay balse xumaanta qof kasta waa uu qarsadaa marka laga soo tago dad fara ku tirisa oo aan xumaanta ka xishoon niyaddeena wax ku jira ayaa wax walba noo horseedi kara haddii wanaag niyaddeena uu ku jiro waan wanaagsanaanaynaa xumaan haddii niyaddeena ay ku jirtana waan xumaanaynaa geesi walba haddii uu dhinto waxaa jira geesi kale uu soo baxayo waddankanna kama dhammaanayo geesi difaaca hadalka saxdaa wuxuu yahay dalkan dadkii u dagaalamayo daacadda ahaa inaysan dhiman oo weli ay nool yihiin